dadweynahan sharafta leh ee reer Gabiley dhalinyaro iyo waayeel salaadiin iyo cuqaal xildhibaano haween dhalinyaro saxaafadda mas'uuliyiinta xisbiga UCID oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Xuseen xooghayaashiisa انت waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaa farxad weyn maanta iya inaan kala soo qayb galo xafladan maanta aan ku shaacinaysaan labada xildhibaan ee aadan iyo Caydarus annagu xisbi ahaan had iyo jeer gobol kasta oo Somaliland waxaanu isku daynaa dadka deegaanka u ah inaanan cid ka tagin min bari ilaa galbeed annagu uma eegno beeshana badan iyo beeshana yar had iyo jeer cadaalad baanu sameynaa waxaanaanu u sameynaa gobol kastaba waanu sameyn karaa inaanu dadka ugu badan aan soo sharaxno laakiin waxa weeye waxaanu jecel lahay maadaama aanu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaanu qof kasta iyo ciddii kasta iyo beeshii kasta ee soo saari karta xildhibaan ama ha yaraato ama ha badnaato maadaama ay gobolka ka tirsan yihiin inaanu musharaxiin ka keeno taasaa keentay inaanu qaadano beesha Madigaan iyo beesha Akishe markii horena waanu ka soo saaray gobolka Gabiley